warkan naga soo gaaray taliye shub ama ninka la yiraahdo General Mahad runtii wax aan u bognay maahan generale waxa weeye iimaanka Allah ku galiyo warkan naga soo gaaray taliye shub ama ninka la yiraahdo General Mahad runtii wax aan u bognay maahan warkaasna waxaan ka helay anoo ah suldaanka ummadda Soomaaliyeed ila ku dhow runtii waa ku aqal celinaya generale saxmaan adiga waxa meeshan ayadoo la ilaalinayo baawur sheerinka koonfur galbeed ayaa ninka khibrad badan uu ogolaaday in koonfur galbeed ay xaqeeda hesho hadda inaad tiraahdo maanta Cabdikariin aniga lama shaqeynayo saxmaan taas wax la aqbali karana maahan dawladnimaduna waa is aamin iyo wax la isku darsaday iyo kala dambeyn nin walbana hadda baawur sheerin uu ku imaanaya Cabdikariin waa nin khibrad u leh taliye ku xigeenkii inta hadda hal sano ku dhawaad soo waday hoggaanka ciidanka asluubta waana nin ay ku kalsoon yihiin ciidamada asluubta Soomaaliyeed marka kelmaddaas waxay iga soo gaartay ila ku dhow General Mahad oo loo garan og yahay shub generale waxa weeye iimaanka Allah ku galiyo Cabdikariin iyo adigana waxa weeye waxa tahay taliyiise adiga asagana waa taliye ku xigeenkaadi wada shaqeyn baa idinka dhaxayso runtii ereygaas haddii uu taliyihii ka soo yeeray waxaana ka soo helay ila runtii xogogaal ah ayaa arrintaas ka soo helay oo taliye shub u dhow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne waxaan ka codsanayaa si sharaf iyo qadarin milga iyo maamuus leh adoo ah madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynihii aan dooranay madaxweynihii aan garabkiisa taagnayn aan nahay waqti walba iyo goor walba waxaan rabaa arrintaas maadaama uu taliyihii qaldamay hadda Soomaalidu waxay tiraa gacmo gal jiro hoosa loo dhaqaa anigu warkaas waxaan ka helay taliye shub waa wax cad weey waxaan rabaa madaxweyne arrintaas inaa hoos u gasho nin walbana waajibaadka uu leeyahay aasiiso waxaan si gooniyo madaxweyne kaaga codsanayaa ama dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga codsanaya dadka darajada loo magacaabayo oo mas'uuliyadda loo magacaabayo madaxweynuhu waa ilaaliyaha sharciga qofka waxaa rabaa mas'uuliyadda markii loo dhiibo tii adiga aad leedahay inaad gudato ee aad dhex gelin midda qofka shakhsiga uu leeyahay waayo adiga waxaad ku timid baawur sheerin qabiil koonfur galbeed asagana wuxuu ku joogaa magaalada Muqdisho gobolka Banaadir Hirshabeelle iyo Galmudug ka soo jeeda bal eeg marka awoodda uu xambaarsan yahay waa awood adiga ka weyn waa khibrad wuxuu leeyahay khibrad adiga ka weyn iyo waayo aragnimo laakiin waxa la ilaalinaya wada dhalashada iyo maamul wadaagga ay koonfur galbeed walaalayn leeyihiin maadaama uu asaga ka soo jeedo saddexdaas maamul goboleed ee koonfur galbeedna ay saleen taliye ayuu saas ugu qancay qofkuna inuu qanco sharafta iyo darajada iyo wanaagga ku jira marka maadaama taliye shub generaalka asluubta warkaas ka soo yeeray madaxweyne waxaan ka codsanaynaa arrintaas inaad dhex gasho si madaxweyne u gasho hortii labada garbaad u dhaxayso aad u maartay u gasho kan qaldamay suldaan baan u hayay taliye shub waa nin aad u wanaagsan runtii shalayna maantana shalay maahan taliye shub waxaa laga rabaa si daacadnimo leh hufnaan leh karti leh wanaag leh inaad ugu shaqayso ummadda Soomaaliyeed wax adiga shaqo aad ku leehna inaad gasho sax maahan ninka wax u sheegi lahaa ma tiide ninka wax ii sheegi lahaa yaata laakiin haddii aad qaldanto waan kuu sheegayaa fartaan kugu fiiqinaa waxa weeye waajibaadka aad leedahay waddankan inaad ka soo baxdaa laga rabaa mas'uuliyadda aad leedahay inaad qabsataa laga rabaa dadka kula shaqeynaya waxaa loo xulayaa dad khibrad iyo waayo aragnimo leh waxa waaye taliya ii soo xulmid cabdi iyo ila shaqeeya ma dhacayso nefa waddankan waxaa rabaa hore inuu socdo amnigiisa waa aragtay hadda maanta sidoo uu shaqeynayo magaalada Muqdisho ilaa hadda qarax iyo dhibaato kama dhicin madaxweynaha wax badan buu ka shaqeeyay waad aragtay madaxweynaha soo u baaba'ay uu rafaadsan yahay waxaas waxa keenay kii jaga loo dhibaba inuu murmo madaxweyne waxaan ku leenahay maxkamadda dastuuriga maartay magacaaw waxa laga rabaa madaxweyne sharci adaga laga rabaa dadkan qabta marka sharci adag dhis si nin walba shaqadiisa uu ogaado cidii ku soo xadgudubtay shaqadeedana la qabto